nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxaa jiray nin kamid ah dadkii hore ilaah waxa uu siiyay maal uu ku ciyaaray maalkii ilaah uu siiyay markii uu ogaaday inuu dhimanayo ayuu wuxuu isku keenay caruurtiisa wuxuu yiri caruurteedii aaba noocay ayaad leedihiin markaas waxay dhaheen aabaha ugu fiican ee dunida ayaan haysanaa weligay wax wanaaga ma sameeynin waxaan idinka codsanayaa hal mid haddii aan dhinto yaan lay doogin hal lay gubo markaad gubtaan kadibna waxa iga soo haro qaybna ha lagu daadiyo badda maalin dabayl badan inta sugtaan kadibna qayb bariga ha lagu daadiyo dabaysha hal la raaciyo waxaan ka cabsi qabaa in Ilaah subhanahu wa ta'ala uu cadaabo Ilaah haduusan aan ii cadaabin cid kale oo adduunka joogto oo cadaabayo ma jiro waxay ka qaadeen balantii waa dhintay odaygii kadibna way gubeen waxay ururiyeen waxyaabo ka soo haray kadibna way qaadeen waxay qayb ku daadiyeen badda qaybna waxay ku daadiyeen bariga maalin dabayshu ay badan tahay waxa uu Alle subhanahu wa ta'ala baddu uu ku dhahay soo ururi intii lagu shubay dhulkeena waxa uu ku dhahay balkeen intii lagu daray adna markaas ayuu ninkii Ilaahay subhanahu wa ta'ala soo hor istaajiyay markaas wuxuu yiri adoonkeygii maxaa kugu kalifay sidan markaas wuxuu yiri yaa rabbi cabsidaada darti Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu cafiyay waxa shaki ugu jiray in la soo noolayn doono waxa shaki ugu jiray in aakhir xisaab ay jirto waxa shaki ugu jiray in la soo bixinayo xisaab ay jirto qof allaala qofkii uu shaki ka galo in qiyaamaha la soo bixinayo aakhir qof walba noloshiisa caadiga ah lagu soo celinayo waa gaalnimo Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu dambi dhaafay wuxuu noogu cudur daaray jahilnimadiisa sababtuna waxay ahayd waxa qalbigiisa ku jirtay weynaanta iyo cadamada Ilaah iyo cabsida Ilaah taas ayaana wax weyn ah sababtaas ayuuna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhaafay xumaantaas haddii fikir iyo wax dheeri aad hayso aad isleedahay barnaamijku way ka dhiman yihiin oo noogu soo gudbin kartaa iyo mowduuca aad danaynayso assalaamu calaykum